iyadoo guud ahaan Somaliland maanta ay ahayd maalintii ugu horeysay ee ololaha doorashooyinka isku sidkan ayaa musharaxa golaha wakiilada gobolka Sanaag uga sharaxan xisbiga mucaaradka ee u cid musharaxiinta golaha deegaanka degmada Garadag uga sharaxan xisbigaasi u cid ayaa degmada Garadag ee gobolka Sanaag ku soo bandhigay taageerayaasha u hayaan dadweynaha kala duwan ee reer Garadag waxaana taageerayaasha musharax injineer Saciid Mira Faarax ay socod lugay gaadiida ku soo mareen suuqyada kala duwan ee degmadaasi iyagoo gunaanadkii musharax injineer Saciid Mira Faarax iyo musharaxiinta golaha deegaanka xisbiga u cid loo soo galbiyay geedka sanatariska ee gob Garadag hab qurxoon musharaxiinta loogu siyaasteeyay waxaana ugu horeynta hadalka iska daba qaatay waxgarad haldool dhalinyaro waayeel iyo qaar ka mid ah musharaxiinta golaha deegaanka uga sharaxan xisbiga mucaaradka u cid kuwaas oo tusaaleeyay in maalinta 31 May ay codkooda siiyaan musharaxiinta golaha deegaanka xisbiga mucaaradka u cid uga sharaxan degmada Garadag iyo musharaxa golaha wakiilada uga sharaxan gobolka Sanaag injineer Saciid Mira Faarax oo ay astaantiisu tahay hangoolka waxaanu aan taageerayaasha xisbiga aan aad ugu sheegaya ugu bushaareynaya in xildhibaan aynu wada naqaano xildhibaankaasoo ah xildhibaan dalkiisa iyo deegaankiisaba run ahaantii sumcad aad u weyn ku leh isagoo aan xil ummadeed markaa ama xil qaran aanu hayna waxa uu shacabkiisa iyo dadkiisa gashaday aynu ka wada dheregsanahay awalba xildhibaan buu inoo ahaa maanta se waxaynu ugu hiilinaynaa farteena si uu inoogu biiro xildhibaanka inoo matali doona golaha shacabka Soomaaliland taaganahay guulayso mar walba anaga garabkaaga taagan iyo koobiso dadkama iyo astaantana waa maxay codkana waa kuma wax badan baaxu qaaliyo wax garad ka cadanaysana wax baran bay cadaalad u ahayd cayn la hoostay wax badan bal ciyaal iyo kabiir cara ku joogteena Saciid baa cishiga laga dalbay oo caadil soo diraya aqligii wanaagsani dulmiga waa ka cararaya amma iyo watiin jacayl la jecel yahay xildhibaan Saciid Mira Faarax la jecel yahay jacaylkiisa ayaana keenay baysanayna guusheenu way muuqataa dadweynaha iyo dhalinyarada iyo waayeelka iyo xildhibaano iyo xaajo iyo cuqaal waxaynu qaadanay midnimo Saciid Mira Faarax waa ninka koobaad Saciid Mira Faarax waa ogeydeen markhaati buu leeyahay been haddaynan sheegayn haddaan la abaal dhacayn xilkas buu ahaa markii hore markii ku xigtayna waa maanta waa xildhibaan hadduu awalba xilkas ahaa oo maanta xildhibaan isu soo saaray inana aynu nahay taageeradiisi iyo xuduuddiisii waartii aan soo saarno way iska muuqataa deen xildhibaankii soo baxay way muuqataa xildhibaankii inuu soo baxay yaynaan kala baydhin yaynaan kala leexan muddada inoo hadhay waa kooban tahay waa wax yar oo intaasaad cagaha dhulka ku adkaysaa raganimadu intaasood cagaha dhulka ku adkaysaa way ku simanta miyaynu kala baydhi karnaa miyaa layna kala xadi karaa xaqiiqadii anigoo og inaad iga aqoon badan tihiin xildhibaanada golaha deegaanka iyo xildhibaanka golaha wakiilada Saciid iga aqoon badan tihiin haddana waxaan ogahay waxqabadkiisu inaanu ahayn mid ku salaysan musharaxnimadiisa horeba aad isu taqaaneen oo horeba aad u wada shaqayn jirteen deegaankana xaqiiqadii run wax badan ka qabtay laakiin balanteenu waa Saciid golaha baarlamaanka ee Somaliland waxaa looga baahan yahay gire soo balanteenu ma angoolka meel farteena heersanaa soo qof karti lama siino Soomaalidu waxay ku mahdaa in jeero in adeerka wixii dhahda maadi waa 31 May baa maadi taala maanta 31 baynu kala hadhan rag waxa kale waa iska ciyaaro aniga lambarkaygu waxa weeye 106 waxa weeye 106 waxa weeye qoriga la yiraahdo
كارك بمقر كارها بس يبونك ورجع سامعون وهذا نحن نسقش كأني نماها وسعيد مرة فرح سعيد وانكي إيش إنه قال لها إنه نكي إنه شقي سنة إنه صاح الله إنه شقي سنة سوينا بلان معها سوينا قولها دقيقة كاي حلبان كقولها وكيل هذا سعيد مرة فرح بلنتي إنه نوا سعيد مرة فرح يو استانتي سنة التهاي هنقول كه كستوى دليلها يقف كستوى عد بحياه وقوم تقصون إنه عد كان موجود على وقوه يوم مشرح برلمان سعيد مرة فرح سعيد مرة فرح وانك إنه تري مدح هاي عاصمة الدلكة وانك محاكو هاي ودانتا إنه سوق الحين الدونا على قولنا وحنا دونينا إن ودانتا مركز الجلحيو نبقى قبته وهاكو كيلو ورابية إن أنا كنا نغنو كوي واحتركها وسعيد مرة كنا تشيله إلى سيلها أنا اللمبر كيو واللمبر كواد و101 musharax injineer Siciid Miro Faarax oo gabagabadii mikrofoonka lagu soo dhaweeyay ayaa taageerayaashiisa ka codsaday inay codka la garab istaagaan maalinta 31 May kaasi oo ballan qaaday haddii uu ku fariisto kursiga in wax qabad ballaaran ka hirgelin doono degmada Gar-adag iyo deegaanada hoos yimaada inta kadib waxaan rabaa inaan tilmaamo waxaan u baahanahay xildhibaan golo baarlamaan oo u adeega xildhibaanku wuxuu shaqeynayaa xildhibaan qaranka wuxuu wakiil ka yahay gobolka wuxuu wakiil ka yahay degmada xildhibaankeenu u baahanahay waa kuma xildhibaanada loo baahan yahay waxa weeye xildhibaan u shaqeeya bulshada xildhibaan ka qayb qaata urinta shuruucda waddanka jirta xildhibaan ku xidhan xidhiidh la leh hay-adaha bulshooyinka arrimaha kuwa yuwanka iyo kuwa arrimaha bulshada ka shaqeeya oo xidhiidh la leh oo u horumari kara deegaanka xildhibaan la xisaabtami kara xukuumadda xildhibaan xaqdarrada diidi kara xildhibaan sinaan iyo cadaalad iyo qofka saraynta sharciga ka shaqayn kara kaasaynu u baahannahay inuu garada wakiil ka noqdo kaasaynu u baahannahay inaynu gobolka geyno kaasaynu u baahannahay inaynu qaranka u geyno sidaa daraaddeed waxaan ka codsanayaa dhammaan taageerayaasha xisbiga ucid waxaynu u baahannahay dad waynu tartamaynaa tartan baynu ku jirnaa xildhibaanadu way badan yihiin 3 xildhibaan baa lagu tartamayaa qof waliba xaq buu leeyahay inuu tartamo inuu hankiisa dhiibto xaq buu leeyahay waxaan ka dhigayaa in la isweydiiyo ragga sharaxan waa la garanayaa qof walba in lagu qiimeeyo backgroundkiisa muxuu bulshada u qabtay halkuu ka joogay danyarta ma is yaqaaneen aqoomaha ma is yaqaaneen horumarka ma ka shaqayn jiray iyo wixii la mid ah waxaan leeyahay waxaa jira rag saaxiibada oo shaqooyin badan qabtay oo ku faanay inay shaqooyin qabteen waxaan tilmaamayaa shaqada laga qabto dawladdu waa shaqo ku jirta miisaaniyadda qaranka baahideedana qaranka abuuray anigu waxaan wax badan ka qabtay baahiyan anigu abuuray oo dhibaatadeedii arkay waa barbosalkeedii qoray oo iibgeeyey oo u soo jeeday oo fuliyey oo keenay